barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faraay oo ay weheliyaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada militariga booliska iyo asduubta gobolkaasi Sanaag ayaa shir jiraad oo maanta ku qabteen gudaha magaalada Ceelafweyn ee galbeedka gobolkaasi Sanaag ayaa markii ugu horeysay wuxuu kaga hadlay shirka wadan jiraayid inay magaalada Ceelafweyn u yimaadeen inay si kama dambaysa u soo afjari doonaan walaadaha soo noqnoqday isla markaana inta badan soo jiitamayay ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay qaar ka mid ah deegaanada degmada Ceelafweyn kuwaas oo aan xal waara laga gaarin sidoo kale wuxuu barasaabku carabka ku dhuftay sida ay u waajihi doonaan ka xukuumad ahaan isla markaana ay soo afjari doonaan colaadaha labadaas beelood isagoo amuurahaas ka hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ah dhammaan taliyaasha ciidamada oo dhan iyo anigoo gudoomiye ah waxaan u nimi halkan degmada Ceelafweyn dhamaystirkii shaqaaqadii iyo dhibaatadii ka dhacday degmada Ceelafweyn ay ku dhinteen 16 marxuum Allah u naxariistay fulintii iyo go'aamadii dawladdu ay soo saartay guud ahaan heer wasiir iyo heer gobolba fulintoodii iyo dhamaystirkoodii iyo waliba adkeynta nabadgelyada ayaan u nimi sida awgeed waanu la kulannay darafyadii ay colaadu ka dhaxaysay markii hore heshiiskii iyo nabadii lagu baaqay labaduba sidii bay u qaateen labadii ardaa ama labadii beelood waa labadii beelood wax ka dhaxeeyeen sida awgeed waxaan halkan maanta u fadhinaa oo aan insha Allah biidmilaahi mar labaad aanu go'aaminay in aanu go'aamadii dawladdu ay soo saartay ee wasiiradii farabadna ay ku saxeexnaayeen wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiiradii kale farabadna ee halkan joogay go'aamadii sidaan u hirgelin lahayn oo bilaabi lahayn oo dhamaystiri lahayn magihii na loo kala wareejin lahaa ayaan u nimi sida awgeed dhammaan waxaan ugu baaqaynaa dadyaga ay khusayso madax dhaqameedka siyaasiyiinta iyo xubnaha muhiimka ah ee arrimaha nabadgelyadu ay khusayso inay ku soo galaan ilaa iyo sabtida hadii ay ka dhigo ilaa ugu dambeyn axadda inay soo galaan oo ay yimaadaan cidii ay hawl iyo arrimo ay ku xidhan yihiin ay yimaadaan degmada Ceelafweyn oo hawsha iyo nidaamka iyo qorshaha iyo magta oo la kala gudbiyo iyo abaabulkuba uu ka jiraa dawladda geesta kale waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolkaasi Sanaag oo dhamaantood si wada jir u sheegay inay nabadda gacan buuxda ku hayaan sidoo kalena waxay baaq culus u direen labada dhinac ee colaadaasi ka dhaxaloosan tahay waxayna yiraahdeen waxaanu u nimi degmada Ceelafweyn annagoo u dhan guddigii nabadgelyada heer gobol iyo noocyadii kala duwan ee ciidamada hadday tahay ciidanka qaranka ciidanka booliska ciidanka asluubta ciidanka badda ciidanka immigration-ka sirdoonka dhammaan noocyadii kala duwanaa ee ciidamada iyo barasaabkii oo hogaaminaya waxaanu halkan u nimi inaanu fulino go'aamadii horey ay dawladdu uga soo saartay shaqaaqadii ka dhacday degmada Ceelafweyn oo ay kala dhantaashay fulinteeda xaaladii abaareed ee dalka ka dhacday taasoo dib u dhigtay in hawshaas la fuliyo ayay dib u dhigtay waxaanu noo muuqatay inaan dhulkani noqon karin ciidamadayuna noqon karin sida Falastiin oo kale oo qaramada midoobay ciidamada ilaaliya ay joogaan inaanay noqon karin Afrikada maxay ahayd South Sudan oo ciidamada Afrikaanka ay joogaan inaanay noqon karin Muqdisho amisom ilaaliso inaanay sidaas oo kale noqon karin gobolka Sanaag ka dhici karin Ceelafweyn ka dhici karin meelaha kale ee gobolka ka mid ah ka dhici karin sida darteed waxaanu go'aansanay sida ay barasaabka iyo jananka ciidamada qaranka ee gobolka sheegeen in arintaas aanu ku filannahay oo aanu gallo hawsha inaanu socodsiino oo fulino annagoo la kaashanayna dawladdeeda oo ay diyaar noogu tahay in maaragtay nagu daba taagan tahay inaan fulino aanu ku metelayno in aanu hawsha gallo oo fulino oo dadkaas xukunkii dawladdu ka soo saartay oo ay dawladdu ogeyd aanu socodsiino ayaanu go'aansanay insha Allah ta'ala waanu isu keeni doonaa wada jir baan ula hadli doonaa waan ku dhex joogi doonaa meelo badan oo degmadan ka midana waanu soo mari doonaa oo soo qodxaya bixin doonaa intaas ka bacdi waxaanu leenahay oo ku baaqaynaa cid kasta oo danaynaysa ama ay khusayso oo daneeyo ka qadiyadan waxaan leenahay ku soo dhawow leeyma sheegin hawran hadal dabadii guuguubaa nacay ما أقبل الدون الدعين يمدمد
ka daba yimaada qadiyadda ninkii isla waxbaad kordhinaysaayo waa lagu baahan yahay waa lagu soo dhaweynayaa ka soo qayb gal nabadda iyo fulinteeda iyo dhamaystirkeeda haddii hadhowta meel laga hadlo cidii meel kale ka hasha waxaan nabadgelyad baan wax ku qabsanayna iyada waa intaa weeye arrintaas halkaasay taallaa waa ka gugaaraynaa nabad baanu kaga gugaaraynaa waxa weeye ninaynaha aan guraynin qarankanu wuxuu leeyahay ciidan nabadiisa kaafiya waa ku filannahay waa ku filan xukuumadda iyaduna waa daba taagan tahay ilaa heer dowlad dhexe ilaa heer dowlad hooseba arrinta waana laga daba joogaa xoog nagu filana oon ku meel marina waa leenahay waa yeelkuna waa nagula shaqaynaya hawshan waa hawshii intii ugu dambaysay weeye waa fulintii bay maraysaa haddeerto 11 bilood bay qaadatay insha allah bismillaahi kariim inaana bisha nagu dhaafina waa rajaynaa insha allah bismillaahi kariim axmed mursal askar TV-ga caalamiga Universal Ceelaf Weyn.